taariikhda shiikha reer koonfur afrika ee ku caanbaxay fidinta iyo ka qaybgalka doodaha ku saabsan diinta islaamka ee magaciisa la yidhaahdo sheikh axmed diidaad oo halka uu wax ku bartay iyo sida uu u bilaabay doodaha diinta ku saabsan ee uu ka qaybgelayay muddo dheer. waa tahay sannadkii 1927 axmed xuseen diidaad da'diisu waxay ahayd 9 sannadood. waxa uu kulankii ugu dambeeyey la yeeshay hooyadii oo ku noolayd dalka hindiya oo uu ku dhashay. waxa uu dhoofayey xagga dalka south africa oo uu aabbihii degganaa. axmed hooyadii dhowr bilood kadib ayay ku dhimatay halkii uu ku nabadgelyeeyey dibna umaanu arag. axmed aabbihii xuseen diidaad waxa uu degmada suraat ee gobolka gujaraat ee dalka hindiya oo uu degganaa ka dhoofay wax yar kadib markii uu wiilkiisa axmed dhashay. waxaanu u dhoofay xagga dalka south africa oo uu shaqo u doontay. axmed diidaad oo 9 jir ah oo aanay tacliintuba u bilownayn ayaa ka daba tegay aabbihii. markii uu gaaray dalka koonfur afrika axmed waxa uu u xaytay in uu wax barto oo uu tacliinta aad ugu dadaalo. muddo gaaban kadibna meel sare oo aan laga filaynin ayuu waxbarashada ka gaaray. hase ahaatee da'diisu markay gaadhay 16 sannadood ayaa axmed waxa uu joojiyey waxbarashadii markii aabbihii oo dawaarle ahaa uu awoodi kari waayey inuu ka bixiyo lacagta uu u baahan yahay inuu wax ku barto. shaqooyin badan oo uu soo qabtay ayaa waxaa ka mid ahayd mid uu ka helay dukaan weyn oo alaabta lagu iibiyo oo ay lahaayeen dad muslin ahay. dukaankaas meel u dhoweyd waxaa ka dhisnaa dugsi lagu baran jiray diinta masiixiga. dhallinyaradii dugsigaasi wax ku baranayay waxa ay si xaddhaaf ah oo aan loo adkaysan karinin u cambaarayn jireen diinta islaamka iyo dadka muslimkaba. axmed diidaad oo qayb weyn oo aflagaadadaasihii ay soo gaadhay ayaa waxa uu goostay in uu diinta islaamka iyo tan masiixigaba uu aad u barto si uu uga hortago oo uu isaga waabiyo dacaayadaha loo jeedinayo isaga iyo diintiisaba. waxa uu nasiib u yeeshay in uu arko oo uu iibsado markiiba buug magaciisu ahaa idhaarul xaq oo micnihiisu yahay soo shaacbixi runta. buuggaasi waxa uu ka warramayey sida ay dadka muslimka ah ee ku dhaqan dalka hindiya ay isaga daafacayaan dacaayado iyo dhibaatooyin badan oo kale oo ka soo gaadhayey dadkii kiristaanka ahaa ee ku noolaa dalka hindiya xilligii uu britishku xukumayey. axmed diidaad wuxuu kaloo iibsaday oo aad u akhriyey kitaabka masiixiga ee baybalka. markuu labadaasi diimood uu aad u dhuuxay ayuu waxa uu markaasi bilaabay inuu si kulul oo cilmi ku dhisan ula doodo dhallinyaradii kiristanka ahayd ee wax ku baranayay dugsigii u dhowaa dukaankii uu ka shaqaynayay. muddo gaaban kadib dhallinyaradii oo iska celin kari waayey doodihii axmed diidaad ayaa baqday. axmedna kama harine waxa uu olole kale oo dood diineed ah ku qaaday macallimiintii dhallinyaradaas wax barayey oo uu iyagana dood ku asqaysiiyey ilaa ay iyana gacmaha ka taageen. axmed diidaad muddo ka badan 30 sannadood ayuu waxa uu socdaal ku marayey dalal badan oo dunida ah oo ay ku jiraan maraykanka iyo yurub iyo aasiya oo uu ka qayb galayey doodo fara badan oo ku saabsan diinta islaamka. waxa uu doodo waaweyn la galay niman aqoon weyn u leh diinta kiristaanka iyo guud ahaanba diimaha adduunka. diidaad waxa ay mar si xun isugu dhaceen nin aqoon weyn u lahaa diinta kiristaanka oo cilmigaasi ku qaatay shahaadada sare ee loo yaqaano DD amba Doctor of Divinity oo cilmiga diinta lagu qaato oo ay diidaad ku kulmeen oo ay doodi ku dhex martay magaalada Durban ee dalka South Africa. diidaad oo muddo dambe dad badan oo dhegaysanayay uga warramayey sidii ay doodaasi u dhacday ayaa dadkaasi aad uga qosliyey markii uu u sheegay in uu erayo halxidha oo diinta masiixiga ku saabsan uu ku qabtay amba ku xidhay ninkaas oo magaciisu ahaa Dr. Boris oo DD ahaa oo uu yidhi markii aan su'aal adag weydiiyey oo ku saabsan diinta kiristaanka
ayuu indhaha caddeeyey oo wuxuu yeelo u garan waayey waxaanan idhi buu yidhi what is the context? And the man kept on staring at me as if he didn't understand English. He is DD. I'm D that. doodaha ka sokow axmed diidaad waxa uu qoray in ka badan 20 buug oo faahfaahin dheer ka bixinaya diinta islaamka casharo badanna waxa uu ka jeediyey jaamacado iyo macahadyo badan oo dunida ah waxaa la sheegay in kumanyaal qof oo casharadaasi dhegaystay ama buugaagiisa akhristay ay diinta islaamka soo galeen sannadkii 1986 axmed diidaad waxaa la guddoonsiiyey abaalgudka weyn ee dalka sacuudi arabiya laga bixiyo ee loo yaqaano abaalgudka caalamiga ah ee boqor faysal hase ahaatee dad badan oo aad ula socda shaqada axmed diidaad ayaa waxa ay sheegaan in abaalgud kasta oo la siiyo aanay marnaba sinaba ugu dhigmi karaynin waxa uu axmed xuseen diidaad u qabtay amba ka qabtay faafinta iyo sharaxaadda diinta islaamka